بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا سؤال بدن baa soo gudbiyay marka wixii isku mid ah waan soo xambaaraynaa su'aalahan wuxuu ahaa inay ku kooban yihiin baaboon haddii shaqadu dheeraato waa laga boodi su'aashaada su'aasha koowaad wuxuu yidhi saa'ilkanu qofka dhintay maya su'aasha koowaad waxaa weeye hilibka cuudintu ma bannaan yahay hilibka cuudinta kolay su-aasha maana fahmin hilibka cuudintu ma bannaan yahay saasay qorantay su-aasha su-aasha lama fahmin wax laga wado su-aasha kale wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan barto ma fahanti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين hadduu macnuhu yahay dadka la cuudinay mingiska iyo walaayadan iyo waxaan cuudinta la yidhaahdo xoolaha loo qalo hadday sidaas tahay macnaheedu waxa weeye hilibkaasi waa xaaraan maxaa yeelay inta badan jiman iyo balaayaa loo gowraca ama dariiqo shareecada waafaqsan iyo sabab aan shareecada aan waafaqsanayn baa dhihi lahaa ayaa lagu gowraca sidaas daraaddeed hilibka neefka marka la qalayo ama waa hilib ahaan in loola niyoodo oo la yidhahdo shaatu laxmin siduu nabigu sal alla alay wasalam ama hadday cibaado tahay sababtii ay shareecadu cibaado ka dhigto inuu gowracu ku yimaado haddii la waayo marka wuxuu noqonayaa mid aan sax ahayn wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh jazaaka allah khayr aljazaa su-aasha xigta waxay tahay canshuurta qaadideeda diintu maxay ka qabtaa asal ahaan canshuurta nabigu sal alla alay wasalam xadiiduu ku tilmaamay gabadhii xadka laga oofinayay oo intay zinaysatay nabigu sal alla alay wasalam dhagaxa lagu dilay ayaa nin saxaabada ka mida markii la dilo dhagax lagu dilay nin saxaabada ka mid ah wax ka sheegay kadib nabigu wuxuu ku yihi sal alla alay wasalam waxaa ka sheegi fa inahaa taabat tawbatan low taabahaa saaxibu maksin laqubilat min waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keeni lahaa midka muxuu ahay canshuurta qaada alla ka aqbali lahaa laakiin nidaamkaasi waa markii nidaamka islaamkiiyo axkaamtiisu shaqaynayso haddii ayna axkaamtu shareecadu shaqaynaynin oo dowladaha lagu hoos noolya marka ayna ahayn dowlada markaa shareecada ku dhaqmay ama dowlada gaalaba lagu hoos nool yahay markaa masaladu waxay u noqonaysaa waaqica markaa jira iyo nolosha markaa jirta iyo ruuxa muslimka ah maxaa u suurtagal ah iyo maxaan u suurtagal ahayn marka waxay gelaysaa laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa mararka qaarkoodna waxay qaadanaysaa haddii noloshii lagu saleeya canshuuraha oo kuwii shareecadu ay meesha ka baxaan cidda markaasi ku salaynaysana dee aynan ahayn cid shareecadii iyo diintii wax ku maamulaysahay bulshadiina markaa ay intifaacsanayso canshuurtii la qaaday ila waxbaa ku kala socda canshuurtii waxaa ku socda waddanka dhan baa ku kala socda nabadgelyadii baa ku socota ciidankii baa la siinayaa wadooyinkii baa lagu dhisayaa waxaan oo dhan wuxuu ku socdaa noloshuu ku kala socda dowladda wax ku kala wada waa canshuurtii sooma markaasoo kaleeto waxa weeyaan haddaad tidhaahdo shareecada xarimtay kadibna aada meesha ka istaagto noloshu markaa way ka duwantahay waxay u baahan tahay marka meel walba fiqigeeday leedahay fahamkeeday leedahay waaqiceeday leedahay waaqica marka aan ku noolahay iyo xadiistii nabigu masalada ka sheegay sal ly sl iyo xukunka kutubta ku qoran say isu dabaqi lahaayeen masalo sahlan maaha taa waxay u baahanta marka in lagu baraarugo xukun ahaana waa ka aan hore u sheegnay wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-iilkana wuxuu leeyahay adigoo mas-uul ah mushaharka dowladda haddii kugu filnaan waayo lacagta dowladda ma kaga darsan karta ruuxa dowladda u shaqeeya
dowladda heshiis buu kula jiraa uu shaqada ku qabanayo mushaar go-an baad leedahay aadaana raalli ku noqday inaad mushaarka ku shaqayso mushaharkaasi wuxuu ku gooyo wax ka badan ha qaadan haddii uu ku anfici waayana isaga tag laakiin haddaad kala qiil baxdood tidhaahdo waan gaajaysnahay oo waan iska guranaya hadda gaajadaadii cid kuu xadidaad u baahan tahay oo kaa korayso soo maa baahidaadii cid xadiday u baahan tahay haddiise lagugu sii daayo o yidhahdo baahidaada ka gudo hadda rag baaba taajiriin ka noqonaya xoolihii dadweynaha sidaas daraaddeed wax xadidan haddii lagu xadiday waxaaga xadidan ku gaabso isku filaysay laakiin xoolaha dadweynaha iska ilaali leanna xoolaha dadweynuhu way ka dambi weyihiin xoolo dad khaasa aad ka qaadatay xoolaha dadweynaha markaad qaadato imise milyan baa ku nool waddanka intaasoo milyan oo ku nool xoolihii ay lahaayeen markaad qaadato oo maalinta aakhare ay soo sabtaan maxaad siini ood maxaad kaga bixi kartaa salaad u qaybsato ma haysid sako u qaybsato ma haysid cibaado u qaybsatood ku fakato ma haysid dembiyadooda inta la qaado baa dusha lagaa saaray kadibna naartaa lagu sugo hal ruux laakiin haddaad wax ka xaddo ama ka dhacdo hadduu barri soo istaago ilaahay hortiisa ilaahu salaada iga siiyo kan iga qabaadhihi salaadayda un sii xoogaa yaroo deeqa waa laga yaabaa inaad hesho laakiin aadamaha faraha badan xoolahooda haddaad isku qaadato yaa weynlak balaayaa kuu taala nacam jazaaka allahu khayran sheekh su-aashana waxay tahay waxaa la yidhi ilmaha waddada laga helo ee lasoo korsado aabo lama dhihi karo dhaxalla kugumana abtirsan karo hadday sidaa tahay markuu weynaado maxaa loogu qori dukumiintiyada iyo dhalashada waa sax wey ilmaha hadduusan aabbo lahayn wuu leeyahay in la koriyo korintii bini aadam wuu leeyahay daryeelkii bini aadamna wuu leeyahay haddii hooyo ama abtiyaal si gooniya u daryeela uu leeyahay iyagaa waajib ku saaray haddii uusan lahayn oo bannaanka laga soo qaadayna ummadda meeshaa degan bay mas-uuliyadin ka saaran tahay in ilmahaas la daryeelo la koriyo laakiin abtir ma leh aabana ma leh ayib hadduu weynaado maxaa la samaynayaa hadduu weynaado waxaa dukumentiga loogu samaynayaa isagoo og inuusan aabba loo ahayn dhaxalkana waxba ku lahayn caruurta iyo gabdhaha ninkana uusan maxram u ahayn isagoo saa og haddana haddii ay noqoto laga maarmaan in dukumenti loo sameeyo ninka korsaday magaciisa waa loogu samayn karaa maxaa kala duwan marka waa iska dukumenti ahaan laakiin wax xukun oo ka dhalanaya ma jiro noloshu qasabtay laakiin axkaamtii ilmanimo lahaan jireen ma laha oo maxay ka mid tahay dhaxalkii ka mid yahay maxramnimadii ka mid tahay ma kama dhalanayso haddii si kale loogu samayn karana nin baan arkay ragga wadaadada ka mid ahoo ilmo yar intuu banaan ka soo qaaday buu koriyey marka wuxuu u bixiyey markuu u magac bixiyey kadib ayaa wuxuu aabba uga dhigay cabdullaahi aadam buu u bixiyey aabihi xagee buu ka keenay wuxuu yidhi horta addoon ilaahay uu yahay waa cabdullaahi aadamna wuu ku abtirsadaayo awowgii buu ahaa nebi aadam marka waa cabdullaahi aadam haddaad cabdullaahi nuux aadam ka dhigtana waa sax nuuxna wuu maraa aadamna wuu ku dhammaada addoon ilaahay uu wey meelaha qaarkood laakiin waxaa la leeyahay dukumentigii waalidka hala keeno sharci loogu gooyo sooma markaasoo kale waa daruuro ahaan in ninka koriyey markaasi loogu gooyo aabanimo waxaa kaloo suurtagal ah ilmaha marka la soo qaada hadduu yar yahay in naaska la nuujiyo oo haweeneyda ninku qabo oo kale ruuxa korinaya inay naaska nuujiso hadday naaska nuujiso hooyay u noqonaysaa dhanka nuugmada ninka qabana aabbuu u noqonayaa dhanka nuugmada ah gabdhihiisiina maxram buu u noqonayaa
بس إيش الصومالي كم هم يكملون وإننا قوني لكن عرب تتقان مركز سي حرج إلا اللي يقول كله حتى هدو وين هذو ويسموا وين لسوقبته إذكر الله وصل الله يقول كده كله هيركي يقبله يحاس كنا كل رفاضة هيا لعدت له كلا وقت النبي كنا عليه صلى الله عليه وسلم ها نيكي ها هاي مولى حذيفة نوها نيكي ها ما اسمها يا سالم مولى حذيفة كورد وقبل رسالة لديش marka nin way weeyo reerka ku jiro mawluhu oo aabo kala malaxid kala mal reer kula nooli waana nin way xadiidka bukhari iyo ku yaal gabadhi baa soo sheegtay rasuulka ninka guriga ku nool yahay anuguna mar walba iskama xijaabi karo nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam nuuji mahram buu ku noqon ardiihi tahrumi alayhi nuuji waa nin way ha rasuulka nin way oo gadh meesha nuuji marka xadiiskaas oo masalada culimada qaar yiraahdaan saarin bay khaas ku ahayd oo qoyskaas ay khaas ku ahayd qaarna ay leeyihiin xaajadaas oo kale haday timaado mid lamid ah mansuuq ma xadiidku xukunku waa soconaya laakiin hadii la helo xaalad lamid oo kale oo Aisha iyo Layth ibn Sa'd iyo Ibn Hazm iyo ayman noocaas qaba oo masalada loo yaqaan ridaacu kabiirka loo yaqaano marka xarajiyada qaar kood markuu wax culays meesha yimaado shariicadu way fududay waxay u heli إلا أن أصل كذا وحكم الأصول هذا رفع الحرج إنه مدة عليلي يحوليس كلا يقع هي تيسير يفضلين بكبيرة والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. سؤال شحنت وحيت هاي قبضوا هدي مهر كذا كويب ستوب دلقضاها نكم يوسع عشان كراه. وليبا waxay ku qeyday su'aashan iyadoo ciidina ka baxday inay ku sii qeyday hadii uu furitaanku ku dhaco in dalqadaha wax la dhaafsado khuluc baa la yiraahdaa khulucuna furiin caadi ah oo kala lamid ah waxbu kaga duway waxa kamid ah ninku haweeneyda uu dalqadaheeda wax dhaafsaday ma soo ceshan karo لأن خلع وطلق بائنة وهل القطعة هو أن سعيش لهين حتى عدد يكبح ذي بهذا الذي هذي حتى عدد كنت تمسوا عشان كم صوت معي هاي صوت محي وحبالك على قطعي صوما قبل أن القطعة هذه السخيار ما ماذا استقفرني حولات غير قادت هذيك هو حسناف صدي هذا إن أول لبوسي سعيش صوت قلمه صوما أساس دراديد مسوي عشان كتير سيدا سجدة كجنب حنين كيدوتين البوسين والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ. سؤال شحنت وحيت هاي طبعا سؤالها مرة كخاطب بروح صور وسكف الله عن خلاصين هذا اللي رفض رمضان مركز سؤال وحيت هاي دوادا عندها لقول العيون صون كمتش بالساعة ما يصاب حماية على الصحيح إنها داوة الأولى حتى هذا دون تقدر يتو بربنكات داوة حماية البيصون صوت صح حتى ميد الأولى هي سيد الصحيحة دقها الأولى حتى صوم حماية البيصون إنك سمدا بكفيقك برامج المشافعية الأولى هاي ويتشبيلي ساهدنا سيد الصحيحة ما تشبيلي سو أثار تصرح سلف كسر المكر الله فيه صوت وحوه شرعه وحي شيكتي وحي عنيد يعبد أما الله معنا أبا تشبيه صوت مركا وحي لها الغشوي عنيدنا معه عبدنا معه الله معنا معه وكذلك دكت وحي الغشوي عروشه ومفقود له عروشه يدكت يسمونه حيال هذا علماء التشريح عافماتكم أي حقيقيا بكم تهاي دكت وحي الغشوي عروشه ومفقود لكن حلقية بقى يقولوا قالوا جوف كمسكحلة قاعدة وحيلة يقولون ماذا كل إله وحي جوف كجاربة صوم كواجبية جوف هو ميلبنا مركع أما عندك قط الجوف كعروش أما جوف كمسكحلة مركع تلقي جوف كمسكحلة وحي جاري صوم كواجبية يعني دليل لهاي أصل ما عبادة وحاجبية وحي دليل له عبادة هذا يقول تنتوي حرنتو وحي عن دليل له هاي للمشركة
marka arrinkaasi madhab ahaan khilaafaha ku jiro laakiin sax ma aha waxay dhal lagu shubay iyo wax dhal lagu shubay soo qabay maayo Allahu a'lam. جزاك الله خيرا شيخ. بنجيga aan ku shaqeynay shariicada islaamka deyn ma laga qaadan karaa? maya lagama qaadan karo. Urubta ribada ku shaqeeya deynta aad ka qaadato waa deyn ribo saaran tahay. ribaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha shariicadu aad u fogeysay ilaahayna iyo rasuulkiisuna dagaalku ugula galaya. bangigu hadduu islaamig yahay mucaamaladaad weliba ka qaadanayso iska hubiso waa suurtagal haddii mucaamaladu iyo caqdigu saxsan laakiin bangi ribowi ah mucaamaladiisu waa ribo wallahu aclam. جزاك الله خيرا شيخ. agoonka xoolihiisa cidda gacanta ku haysa maxaa uga bannaan inay ka isticmaalaan? في سورة النساء الله وحكوشه تبارك وتعالى أقونتا حوله ضدك معمولية كعنت كوهية أما كان عسيهان أما إلالي كعنت كوهية الله وحكوشه تبارك وتعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روحي ككفتومي كرو هانتلونا أقونتا حوله ضد إسك إلالي أنا إلالي oo u rogrog oo waqti geli waxna ha ka qaadan. ruuxii faqiir oo baahan agoon xoolaheed wax gacanta ku hayo wax ka cuno si wanaageeda la yaqaano wax uga cun buu quraanku yidhi. macruufkaasi maxaa la yidhaahdaa? culimada qaar waxay lagu ka daynsan qaarna waxay warmeehe dadka ka shaqeeya xoolo ayna lahayn ku shaqeeya curfi ahaan waxay qaataan buu ka qaadan karaa. taasaana sax. مثلا حوله وصلنا يروح بقوق عشان يسمع بقول كيف ينتهي كقاتا الدليل هذا بقول كيف فائدة صباح الله تنبو قاتا روح كشقة يا حوله وصلنا هاي كعوانتك كشقة يا فقير كأنا أنت وصلك كقاضي كرا ها مركا قرصاص إليه قروح إليهم روح أجيرة والله شقالة يستي محوق الجورة وكقاتا وكلو كقاضي كرا مركا ما إجارة ومضاربة fuqahadu inta ma yiraahdo marka waxaan xoolihii agoontana xadgudub ku ahay asagana dhididkiisii uu ka shaqeeyo u dhigma ayuu xoolaha agoonta ka cuni karaa maadaama uu wax kala lahayn agoonta xoolaheedana ka shaqeynay. naam. جزاك الله خيرا. سؤال شحكته wuxuu yiri saailkani dhulka ganacsiga ah sako ma laga bixinayaa? jawaabtu waa haa. laana dhulka ganacsiga u yaala waa curuudu tijaara waa badeecada dukaanka taaloo kale la mideen. sanad markuu soo wareego waa la qiimeynayaa kadibna haddii qiimaha soo baxay uu gaadho qadarkii sakadu ku waajibaysa waa laga sakeynaya. haddana sanad markuu soo wareego saasaa loo qiimeynaya. waa sida dharka oo kale kabaha dukaanka yaala badeecada dukaanka taaloo kala mid ah dhulka laga ganacsanayo maaha dhulka mulkigay ku yaal maaha midkaad kirada ka qaadanayso ee waa midka la rogrogayo waad gadaa waad sii gadaa haddana waad sii gadaa dhulka u yaala iibka waa badeeco oo kale waaye sanad markuu soo wareego waa la qiimeyn sakadan waa laga bixinaya. naam. جزاك الله خيرا شيخ. سائلكن wuxuu yiri lacagaha waraaqaha ribadu ma gashaa ma ka suroobaysaa? ribadana noo yara faahfaahin sheekana jazaaka allahu khayran buu ku leeyahay. ribada faahfaahinteedu waa masalo fiqhi oo kutub dhan baa ka hadasho hadda su'aalaha jawaabaan laguma koobi karee laakiin lacagaha hadda la isticmaalo sida saxiixa ribadu way gashaa. lacagihii waqtigii nabigeena la isticmaali jiray sal alla alay wasalam qur-aanku degayay waxay ahaayeen dahab iyo fiday ahaayeen soo maa laakiin lacagnimadii waxaa ka riixay oo ka qaatay hadda lacagaha dawladuhu sameeyeen. lacagaha ribadu waxay ku gashay cilatu riba waxay ahayd athamaniya shay fuqahadu sheegaan oo isku raacsan lacagahaasi waxa ribadu u gashay waa lacagnimada dahabka iyo fidada waagaa ribadu u gashay. kuwii booskooda galay axkaamtii waxay qaadanayaan dahabka iyo fidadu lahaan jireen. saas daraadeed marka la isku sarifayo lacaguhu hadday isku dawladi soo saartay waa inay isleegihiin waa dahab iyo dahab la isku gaday oo kale
laba dawladood hadday soo kala saareen waa dahab iyo fidda la isku gaday oo kale way kala badnaan karaan laakiin haan wa haan oo si way meesha lagu kala qaato axkaamtii lacaguhu lahaayeen dahabka iyo fiddada axkaamtay lahaayeen bay lacagahan ay qaadanayaan sakadii waxay kaga waajibaysaa qadarkii ay kaga waajibi jirtay dahabka iyo fiddada marka halkaasay marayaan wallahu a'lam جزاك الله خير الشيخ وحولي سائل كان يهندد الدولة قرية لغا ديسو شرعة بحي كقبطان وسؤال شيء هذا عنك الجواب تين دويد من لم يتهاي قرية الحولاء دولة كدستين مصومات سقع عالي أو دولة بعد هذا مليء نوت هذا مليء الحولاء بعضي خيانة قاضة مصومات سقع waxaad u xadiisaa dawladdii bulshada matalaysa ama haddaad ka baqdo dawladda inaad xadiiso in lagu xidho balaayo kugu dhacdo intaad iibiso masaakiinta dhulkaad joogta u qaybi laakiin adigu ha sii dibacsane haddaad ka dhimatoo lagaa dhaxla xataa maalinta qiyaamada adigoo baa lagu qabsan oo lagu soo istaajin marka hanti dadweyne la isuguma dhowaado waa mid ay shareecadu u taqaano quluul bay u taqaano quluulku waa hantida caamka ah oo si xaq darra lagu qaato dadka saa wax ku qaata maalinta qiyaamada waxay imaanayaan ayagoo waxay saa ku qaateen xambaarsan guryo waaweyn rag xambaarsan oo warshado xambaarsan ayaa berri la keeni doona marka guriga berri adoo tunka ku sida iyaadan imaaneen toobadkeenu iskana celi wallahu a'lam جزاك الله خيرا سائلك انه حولي هي يعني قوسكي اسقبي قفت غبدي iyo wiilkiiba waxay iloobeen qadarkii meherka markaas waxa loo xalinaya gabadha hadaan meherka alla halmaamo wixii lagu meheriyay ama meherka laga aamusi karaa marka la isu meherinayo waxa la dhihi karaa gabadhaydii iblahay baan ku meheriyay meherkiina la sheeg waan ku guuriyay meherkan waa laga aamusi karaa haddii marka laga aamuso la sheegin ama inta la sheegay la halmaamay waxaa loo noqonayaa waxa la yidhaahdo mahrul misliga meesha la joogo gabdhaha maxaa lagu meherin jiray waqtigaas haddii la yidhahdo markaa waxaa lagu meherin jiray waqtiga afartii qaalmood baa loo noqonaya hadday noqoto 50 جرام الذهب lagu meherin jiray 50 جرام الذهب loo noqonaya waagada halkaas laga qiyaas qaadana loo noqonaya wallahu a'lam جزاك الله خير يا شيخ سؤاشنا waxay tahay waa su'aashii dhalinyarada marka wuxuu leeyahay gabadha ilaa 5 sano ma shukaasan karaa ma la shaqeysan karaa hoteelada marmar ma ka soo cashaysiin karaa la soo horiyo shan sano sheekada socota xagee ku dhammaan doonta 5 sano shukaasay socda ma jiro marka waan shukaansanaya hadhihin hawlaha qarsoon ee idiin qarsoon soo bandhig si looga jawaabo laakiin gabaad ha ka dhigan inuu ha ku dhuumanin waan shukaansanaynaa shukaansi 5 sano socda ma jiro laakiin waxa 5 sano socda wax waa edab darro يا الدكتور عشان صار صعود هي ويل يقول أجنبي كلاه أو شيء كذا يا خير كودو قالوا هير أين شرعته أين بنين هذا اللطيفة ثم ركمت ولا الله اللي يحكوي مروعة هاي فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ثم ركي النبي قال الله صلى الله عليه وسلم هذا الكهدم عيننا وهاتش العيننا وهذه هذا الكذب في السوق مثل قلبك كشرن بعد دمع قليا يا شو كان سكان عظمه لسان لا يرضى هذا إليه سرده صعاني هذا القلبوه هذا يو لبدا إسقبا حتى قوه هذا صوما ورصوما هذا يري يا نيكي سبيه بهادي وحاسب معها وهو هاي ديننا
وهذا الضر هذان اللي يشغل أنت اللي يرى يتمت الرسول محوها الشيخو شو كان سبا مدن قد كدب نوان اسكو خلدناي يا واحد اسكو خلدناي إلا اسكو خلدنا محاكينا يا شرعه waxay tiri zinada iyo xumaanta saha sameeyna ma dhihine haw dhawaanina way tiri haw dhawaanina waxay tahay insha Allah ba irida meel ku ka xidha meel ku irida ka sii xidha insha Allah ba haweeney ajnabi hal gooni noqon hadalka hadan bilin xiriir khaldan hal yeelanin hal safrin adoo mahram u ahayn guri gooni hal fadhiisanin waxa soo dhamaado diiday waxa lagu hortagay xumaanta dhexdeeda hadii marka wixii la soo jeedo hada waxa xigoon xumaantu ila dhaco waana tan dhalinyaradu aafada la socoto sidaas daraadeed gabadha inaad isaragtaan dhimale inaad sheekaystaan muddo koobanna dhimale haddii guurku idinka soo go'o wardanboo sii soconaya ma jireen ehelka u gudbo gabadha aabaheed weydiisankeeda kadibna gudagal inaad guursato haddii kaleeto soo maaha gabadhana calafkeeda adigana calafkaaga bannaan kala mara waqti badan inta la iska lumiyo oo 4 sano 5 sano 6 sano la isdaba socdo waa kuwa ugu roon oo xaraan fara badan iyo hadal iyo la galo oo marmarka qaarkood gabadhiyo jirkeeda qayb qaawan yahay ay sawirto ugu dirto oo la isku aafoodo ayaa marka dambe waxa laga yaabaa in la kala dhaqaaqo maan dhow yahay intaan jijigu igu weydiinay in la yaraa wuxuu sheego 4 sano gabadha soconay waxa jijiga taariikhda 4 sano wada soconay sheeka naga dhaxaysay kadib gabadhii xumaan baan ku sameeyay oo xumaan baa naga dhacday kadibna qalbigaygii baa ka go'ay oo waa nacay ballantii ma uga bixi karaa walida khasaaro dhacay fiir baas maxaa keenaya edab darrada waa marka shukaansi ma waxaad wadaan dhalinyaro waa edab darrada tajiib wallahu a'lam jazakallahu khayran wali waxa socda su'aalihii dhalinyarada wuxuu leeyahay siigaysigu ma xaraam ba مسألة اليرماء مسألة اليرماء ومسألة فقهية هو يبقى هذه علماء ظهري وبعض له سيد الصحة أنا وحوي شهوة إن لجوج جتو وحن حاس كاجاهين أما الضوء تاداهين وحرام قرآن كلا وحكويل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وحن حاس كاجاهين الضوء تادينا أهين روح الشهوة كوجد وحد قد بيجوال مركز عن تاد ما حاس كاجاه يا لو على قصور ربي حاسكي يا محي حاسكاجي يا الضوء تاد فعنتو حاس نقومها الضوء نقومها معوس وكلا يا مركز فمن ابتغى وراء ذلك لا وضع ويدي كسر عليه سوق ليس حد قدر وايه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمي دين الله حرمي بانو كجرا عذر را كدشا دباتوي با كدشا روح بالي دوي انت انا تشجيع جوي سيشناد بيو بدي ويقول لسانه استعماله وليga kari way oo naftiga barat oo si walba yeelay oo dhaartay oo ilaahay wallahi inaan ku noqonay oo dana ku noqon oo dana dhaartay oo dana ku noqon markii dambe kaliyaha halis bay waxa iga gaaray dhibaato baaris baan dhagay taqaatay taantay waxa lagu yiri kaliyaha ku khatar bay ku jiraan waxa keenayna wax weeye waa waxaas waxay keenayaan cudurro fara badan oo laga yaabo marka dhalinyarada tahay inaadan galin laakiin kugu soo bixi doono waana wax shariicadu u diiday waa shariicadu seedo meel fog wax ka fiirsamo dhibka ka imaanaya baa loo diiday sidaas daraadeed haddii ay shahwadu ka tambadoodan isqarin kareen gacanta iska daayay guurso bismillah inta tiraahdo ya حتى إسلام وحوجا جناح سيرها يسطر وحوجا حاجة بعناه بسم الله
يا هذه حتى هذا خرج واي مش إن شاء الله تعالى من هذا ويصيروا كل دورتين لكن حاراتها قريب واحد اسكده مصلحة أنكم تجرتوا آخرات يدون كان لبا بسوق يعني الله أعلم. جزاك الله خير الشيخ. سائلك إنه حولي روح عن ألاب كدعي هذا عن وايي سام حليا. كدعي. ألاب عن كدعي بهذا كور روحين هذا قرن ما يروحوها يميل شيطان قرن ما يو مركدم بيجي سام وصل الله خير سام ألاب كحليا عن كدعي خلاص. حولها ردي لهيد للقروة ومن العلماء يلاهدان المجهول كالمعدوم مركو حالو بحنايا صالح العنك طلبتي هاتكد على القيمة هذه واحد كليسات دناها جودة المسلمين ودويك عيلشا اسبيتال لدى مساكين تا تمارس دناها جودة المسلمين ككوبي وصدقين إلهي مرفو مكان انت النوش عين الروح ولالك حوريسي دحدي الهي دمله هو يدي ودعاء استغي ودعاء حوله سنه صدقه ادغون الهي دمله هو يدي والله اعلم. شيخ جزاك الله خيرا. سائلك انه حولي هي مركان استجيسanayo kaadu igama dhamaato san yeela waa waswaas waay kaadi aan dhamaan inuu iska socoto waa waswaas midba wuxuu leeyahay sheekhow markaan istijaysto salaada galo qoyaan baa iga yimaado طيب marka aad waxaan weydiiyo ku marka adoon salaad tukanayna aad istijaysato oo aad iska tagto qoyaan ba ka yimaada ma iga yimaado qoyaanka salaada ku khaaska marka oo salaada markaad galayso ka imaanay marka waswaaskaasna waa halis oo ruuxa wuxuu gaarsiin karaa nooc waa junuun sidaas daraadeed nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waswaaska ka hortaga ba xadiis nabiga ka soo ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka waswaaska noocaas qaba marka aad istijooto oo sidaada dhamayso meesha ku aadan xubinkaaga taranka biyo ku sayd markii uu shaydaanku ku yiraahdo qoyaan baa ka soo baxay waxa leedahay warmeehe waa biyahan anigu isku sayray Soomaali warmeehe waa biyahan anigu isku sayray shaydaanka isaga dhaliso laana waxan xaqiiqo ma aha Soomaa midkiin buu iimaanay nabi sallallahu alayhi wasallam markaasuu isagoo salaada ku jira dabada ka afuufaya waa shaydaan markaasuu ku leeyahay neef baa ka soo baxay nabi sallallahu alayhi wasallam salaada ha ka bixin ilaa aad ama ur ka dareento ama shanqadha maqasho hadhaysani waswaas hadaad waswaaska hor orodood xal istiraado godkii shaydaanku ugu talagalay dabankiisa ku dhacdo kadib uu kaala gudbi doonaa marka damar waxaad gaari doontaa inaad xalba u weyn waani ka sheekay xal habeen hore ka sheekeynay wagaan xirta ay kutubta akhrisan jiray fiqiga shaafiiciga waa fiqi qiimo badan laakiin baadka dahaaraadka wuxuu sameeyaa fiqigu dadaal fara badan baa ku jira dadaalkaas dadka qaarkood marka wuxuu u geynayaa in ay xuduudda tilaabaan oo soo u leeyahay oo wax daahiri oo marna bahalka u xoqayo u jiidayo oo baashu ugu wado dhaawac badan baa gaari waswaasta marka uu gudbaya waswaaskaas marka ilaas ka xidho baahay xerow buu ahaa xer baan ahayn kutubta waa qisan jiray waswaaskaas ku dhacay xusumayna marka caagad buu dhaansanaya musqushu galaya markuu musqushu ka soo baxo وصوي سيجتوغو بيه عاقدنا وصول أمي مركو مسخوشة كسو بحو بناك يمادو أيو الشيطان وحو كله وحن كاب قيون الله وما تسكوك عايدين بيه هيرا مسخوشة قداليس بيه هرلق قدالان قادر يا مرض وبدلنا يا هدر وكالها يا وصول نقلقها يا مسخوشة سكنا ماني هذا نمرك لو وكاقل صلاة حرشدين صلاة مركو حري هذا أصلي وأقول حفظي كي شيطان أصلي صلاة كلا صلاة الصلاة ما أقيم الله ما يستوي صفه كتير وقاسوا حري أصلي 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 ما حرا كرو
أصلي أولي أيام صلاة كجبحينا أفرتك أول كجبحينا بركي صلاة دي لجبح حودتك دريران أيو آدمي إلا الآدم الشيطان كان له إلي صلاة حي على الصلاة حي هذاك وقف هذا العقيم مركو صلاة دي قل إسلام أصلي مرة بكرة صلاة عصر كبحي وقت قالوا يسوي ويلكي ماشي تقدر أصلي كويس صلاة دي دور كبحي عصر كيبا بحي ما تكنكروا شو سويها مركي واقو بريو برقي اللي قالوا بلدويني يعني ماشي تشوفني وبيجي بلدويني انتو قال سجى دركي سبا يوبيجي سكوتوري سجى دركي بس نظيف ليه سمعت مركو حضر هور أردن داوي هسلين ما حد من صلاة كو أتكيها لين سؤال ذكر كويس التحيات التحيات كويس والنافلة وحكلمة ووسواس مدك كان رب فاتحة وكجلية مد ظهارة وكجلية مد وكجلية جور كي يفورتان إن الذي يرى يبالو يقول شيخو هذا الكستو يقصر بحو حنموذي أنا ناكتي لفوري بسم الله هذا له وفورنتها بيجان نقول ورك عاصم يا ورك وعكول سيدي مقيم يقولون ليه روح مركو هيك قالوا حتى وفورنتها هذول عبك وفرمان لأنه والي طبعا ونوع جنون واي مجنون كان حكم فرمان فعن كوضا انتو سرحلكاكو قارسينين انت دو حاجات اسلام هاي دبن اوكل محل الرواء markuu ku yiraahdo salaadu kuuba xidhna yeelkadeeda ku dhig ka soo markuu ku yiraahdo istijadi waxba ka maqan ha ka maqnaato dhig yaani habay yaraatee hal shay ka rumaysan markaad sidaas samayso ilaahayna magan gasho waan hubaa inaysan waqti dheer kugu qaadanin waa ka tagaya markaa waswaaski waa ka baxaya waa caafimaadi wallahu جزاك الله خيرا وحولي جيم هدان ساعة بدن عيارو مدن بيقول تهاي هاي هدان عيار جيم كحيوان عياران وقت بدن كله بيها وحيالها عيارها ورتا وحلقوا مكلا قادن كرو اللهم صدح عيارات ونبي الشيخ صلى الله عليه وسلم ترتن كفردها هي ترتن كجيلة هي توقي صدق توقت صدح ذو بجهات في وقت ميني صدح ذا وحى عهين وعيارة وحول لكم أكل قاضن كبر النبي صلى الله عليه وسلم عيارة سي أهانت هذا هذان وحنا لوكل قاضنين واجبات في الدين كان عن لوجود ضيحين إيضا نحن وحارنا عن لوجود سمينين نقلنا أي أولى هذا يروحها مركز الملك مثلا جميع الشباب كتيرة ولا أرضية مثلا أرض والله تنتمي مثلا بنوني ولا عيار يا ولا أرضية لكن وحوي واجب إنك ما تضيع حيشي عاي أفلقاد ماله شركي لما قاوينا يو كريه الشركة كوتش السنة يا شركة كوحوجي سنة والله بهاي صوما مرك عيار نوعه سكر النفع قال لي ماله أما هذين عيار النفع لهاي شركي نحب سوهين يسوع مركز سوحنا وقت لهم يسوع سيدا محوا هاي تنحوا هاي دليرو استعمالنا ميس كيطلع بيجو وقوري اللي هم بدون معايا لا يا ها تاسو كلا wax macno leedahay ma jiro maskax ma kobciso shirka xoogiisa kuma tarto shirka waxba kuma faa'iideyso waana waqti lumis ciyaaraha labaas loo kala qaadaa inay nafci leeyihiin iyo inay nafci la'aan yihiin naam جزاك الله خير إن شاء الله تعالى وأن سوق بين سؤالي ممكن بيجيبا دواش وأن سوق الجوين دونا إن شاء الله اللي بس سؤاله إسكاك دوما إسرائيل يا سؤال شكرا وحيل هذا هاي هول فلين تحفيز يده هدي لو قرقف عن شقينين كورن هول فلين تعالي هذا يعني واحد حفيز كولي هاي وما تشقيك أو كوكب صور جوني ده قف عن شقق وانا تلا قر صعبتها هاي بيقولي هاي يسؤال كله حفيز أياش وحولي هاي يعني حفيز ما كشقيا قومت شقدنا وان كم غنا هاي حدان إمادنا شقة متى لماشي حدان اسكتشوا ومشاركة صلاة وقت عالمية شقاء آذان قبلين
mushaharkeedu waa xaaraan waqti lagugula heshiiyey oo aadan imaaninna mushaharkiisu waa xaaraan tan dowladda aad ka hadlaysaan laakiin tan dowladda iyo ta hay-adaha iyo ta ashkhaastu waa isku mid ruux baa shaqo kuu dirsaday shaqada lagu dirsaday ajiir baa tahay waa lagu shaqaalaystay shaqadu laba nooc waayo in la yidhaahdo waxaas qabo hawshaa dhammee markaad dhammaysana intaasaad leedahay inaad mudato waxa lagugula heshay waxay ku xidhan tahay inaad shaqadii dhammaystirto soo ma tiirkan dhis baa lagu yidhi markaad dhammayso waxaasaad leedahay marka shaqay ku xidhan tahay marna waktigaagaa lagaa gadanaya oo waxaa lagu leeyahay meesha ii joog muddo 6 saacadood 6 saacadood ee meesha ii joogtana waxaasaad ku leedahay hadday tahay waktigaagii waxa lagaa gatay ama shaqahay ama hayni waa inaad joogto hadday tahay waxa lagugula heshiiyey shaqo mucayana shaqadii markaad qabato ayaad xaqaa leedahay haddaad shaqadii musuqmaasuq gelisana waxaad qaadanaysa waa xaaraan haddii muddadii lagugula heshiiyey ee waxaad ku qaadanaysay aada iyadana musuqmaasuq gelisana waxaad qaadanaysay baa xaaraan noqonaya wallahu aclam jazaaka allahu khayran kana waa su-aal arday wuxuu leeyahay sheekh waxaan rabaa inaan akhristo cilmiga caqiidada marka qof aanan isku aragti ka ahayn caqiidada maka akhrisan karaa iyo sidoo kale goormaha qofkaas waa ashcari la odhanaya markuu intee oo kale yahay ruuxa haddii caqiidadu ka khaldanta caqiidadii ka khaldanayd kama baran kartid masale isagiiba ku qalloocsan markaad adiga ka barato soo kugu qalloocan mayso marka midka fiqigu ku qalloocan yahay fiqiga ha ka baran midka masaa-isha caqiidadu ku qalloocsan tahay ha ka baran laakiin haddii masaa-isha ku qalloocsan ama baabkaa ku qalloocsan sida khaldan uu fahansan yahay mooyaane cilmi kale uu leeyahay adiguna markaa qaladkiisa aad iska badbaadi karayso cilmiga kale ka qaado maalan masaa-isha caqiidadu matala qalad kaga jira ama bidca qaarkood buu leeyahay laakiin wuxuu yaqaanaa cilmiga naxwada soo ma haddaad khaladaadkaa kale iska ilaalin karto naxwadiisa ka baro sarfiga ka baro fiqigii buu yaqaanaa khaladaadkaa kale haddaad iska ilaalin karto oo fahamsan tahay fiqiga ka qaado leanna salafku ridwaanullaahi calayhim waxaa sugan dad masaa'il caqiidada ku saabsan ku khaldamay bay cilmiga ka qaadan jireen qaarkood oo waxaa ka mid a maalan ragga salafka aimadiisii ka mida oo qaar ka mida irjaa lagu tuhmay baa ka mida caqiidat lirjaa haddana xadiiska way ka qaadan jireen fuqahada qaar waxaa jira lagu tuhmay tashayuca nooc shiicanimaha haddana cilmiga kale waa laga qaadan jiray wahaakada waa midule imaamu dahabi caleyh raxmatullah haddii culimada ninkii khaldamo baab ku khaldamaba cilmigiisa laga tago ya hadda xaggee cilmi loo raasana inaa khalad lahayn ma jirin marka macnaheedu wax weeyaan gaar ahaan masaa-isha asalka ee caqiidada ee lafdhabarta diinta u ah ninka ay ka khaldan yihiin ama madhab khaldan fahansan ha ka qaadanin ninkay wax u saxayeen ka qaado culumta kale se kolba saad ugu baahanta waad ka qaadan kartaa ninkii yaqaana wallahu aclam jazaaka allahu khayran waxaan kusoo gabagabeynayaa 2 su-aalood oo isa saaran midda hore ay tahay xaaskaygii oo dhimatay meherkeeda ma u sadaqayn karaa iyo su-aasha kale oo ah haddii raggu ay leeyihiin jannada haween xurulciin ah dumarku rag xurulciina ma leeyihiin haddii raggu la yidhi waxay leeyihiin haween xurulciin oo jannada ay ka helayaan dumarkiina rag noocaasa jannada ka helayaan xaaskaaga iyadoo meherkii kugu leh hadday dhimato meherkeediina ay leedahay meherku hanti ay ka tagtay weeye dhaxal bay noqonayaan oo u sadaqayn maysa soo maha ilaana dhaxalka laga tago waa maal iyo dayn dayntu waa xoolo la dhaxlo marka dadkii dhaxalkeeda lahaa oo adigu ka mid tahay haddii markii ay dhimanaysay xadhigku ku hayo isqabteen adigu ka mid baa tahay meherkeedii ay kugu lahay dadka dhaxalka kule aad ka mid tahay
marka waa la dhaxlayaa adiga ubadkeedii wixii ay ka tagtay xoolaha waa la dhaxlayaa midna waan idinku baraarujinayaa haddaynu Soomaali lahay dhaqan khaldan baynu leenahay gabdhaha meherkooda inaan iska haysano Soomaa oo aan ku dhimano waqti iska jirto arrinkaasi waa dhaqan khaldan dumarka meherkooda siiya sida Ilaahay Quraanka ku yidhi wa aatu nisaa صدقاتهن نحلة إلهي باشي محاد وحي ستان نحلة وحي إلهي هنا بركة هي ستان معه كعنتك القليل أيوة أما كو قنع السدين أما هالصدقيستين أما محوها هايستين هايسنين صوما وواحد حبي كده ترنك كوبا من اللي استطيعوا مركة وقلب رقوا إلي قبلها المهير كوضا هايستان خلقات بكون جروحة كمدة والكور رمى قبل أما هويني كنتم سنة كهر لغو مهيريي مثلا قارن كيلا قبل هذه قارن تاقيلا واقع لغو ريتين لها وإلهي قلنا بالكريم انتهي بيترمي لها يا سو قيل بدن ومن نقضي كنتم سنة كدب أضيي وحتاقية ناقارن تيوم بعد يقول هذا سوما ظلمي ميكا ما كنترا بسكو بشرو ظلمي ما كنترا سوما ومد لباده حداد أدو دين خبا أو مهلك الجواب كمدي أكو جيريوت وضوح كاب حيوي قبر وأكو جبلي ما قالت من القبوب يصير إلى دين تلاقى الجدود النبي صلى الله عليه وسلم للبعاس مو كقيب قال انتو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه حول سوق قال aska markuu ka qayb galo wuxuu dhigi jiray wardayn ma lagu leeyahay hadii la yiraahdo dayn ba lagu leeyahay uu isaga tagi jiray ku tukadu leeyahay nin dayn qabaaro ku tukan maayo maalmaha kamid ah sidaas oo kale nin ba wardayn ma lagu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam war waa lagu leeyahay nin ba dayn ku leh rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ku tukada uu isaga tagi kadibna saxaabada kamid ah yiraahdo ana daynta qaaday oo bixilay maada qaaday oo waa dushaada waa ku tukaday nabiga sallallahu alayhi wasallam markay waxay ka soo wareegtay maalin bay iska hor yimaadeen wuxuu ku yiri wardayntii ma bixisay meyd wuxuu rasuulka Ilaahay hadda ma ahayd waqti dheer ka soo wareegin haye mar dambe hadana is arkeen wuxuu ku yiri wardayntii ma bixisay rasuulka waa guday hadda shirkiisu qaboobay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadda shirkiisu qaboobay Soomaali far badan meherkii ay gabdhuhu ku lahaayeen inay qubuurta ugu gubanayaan waa u malay maxaa yeelay sidaan u fududaysanayno xuquuqda dumarka oo waxaan caadi ahay gabdhaha meherkooda siiya ha ku dhimanina haddii ay dhimato waa dayn waana la dhaxlaya masalada labaad maxay ahayd haweenka xorriyeen jannada ku leeyihiin ya ragga maadaama dumar xorriyeen loo ballan loo sheegay ragga haddii xorriyeen loo ballan qaaday dumarku xorriyeen ba leeyihiin ayaguna aakhiraba ku leeyihiin وحور الحين ودمر لو شيء ما جري لكن وحاول نلو شيء آخرون إن يركوا ليه رجلان نقول بيان أويني نلعان بمطي نبالو سمي هويني دي نينكدي قدام بي أما يكلم مطي أما كلم تي aan looga dambeynina xadiidka nabiga waxa ku soo sallallahu alayhi wasallam inay ninkeedii xaas u noqon doonto waa goorma waa hadaan looga dambeyn uu ka hor dhintay nina uga ma dambeyn ama iyada ka hor dhimatay waa xaaskiisii aakhiro jannada xaas ugu noqonay kuwa kale ee rag la'aan dhintayna rag xurul inta ka qurux badan ayaa ilaahay jannada ku siiyay tabaaraka taala oo ay xaasas u noqonayaan ما أهرج كليه حور العين تلوض يعني قبلها إلا قدير يا ما لكن حور العين وحلي هذا وصفات دمر كليه نرجو ملا الحور العين وحوي ودمر كي على العضاء إنها وينوى وكالصفات رجليه يا دمر ليه الرجل سيدنا لكن النصوص وحي شيء لبضوا إليه إن شاء الله تعالى كليهين وحكستوا أي شهلادان بكليه كذا دمر يباشي وحكستوا طبعا أي شمل الكلية والله أعلم. جزاك الله خيرا الله خير ومسيو إلهي سبحانه وتعالى الشيخ كاب المريو
wanaagga faraha badan ee uu soo jeediyey ummaddana allah ku anfaco waxaan ka cudur daaraynaa su-aalo fara badan oo lasoo gudbiyey inaan waqti loo heli karin marka insha allahu taala in badan baa laga jawaabay jazaakum allahu khayran ugu dambeyntii sheekh dadku waxay codsanayaan su-aalahay soo gaarayay dad xanuunsan iyo ducad guddi codsanaya insha allah marka intaasaan kusoo gabagabad baa biidnillahi tacaala بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين إلهي تبارك وتعالى انت جرن عافمد الله سيو وليسك الله كقادو مشي كحنون سنيان إلهي عافمد هو بدلو طويل عافمد الله هو بدلو إلهي أجرها كسيو انت نبر نباتد الله كقادو انت هنوصل الله سوى هنونيو انت هنوصل الله سياديو انت همومت هيسو همومت الله كقادو انت فقرك وهي حول بركيسن الله سيو روح كستو دباتة قبنا إلهي دباتة كقادو انت دباتة سيسنا إلهي أجري الثواب كسيو سبكنا الله وفجيو بلادنا بلاد آمن وبركيسن الله كدقو روب بركيسن الله ينسيو أبارها يوحي الله لك بقي الله ينجبيو إلهي عرادها يدباتويك الله ينجيلاليو dadka muslimiinta ah ilaahay qulubtooda ay jeclaysiiyo walaalnimo iimaan allah siiyo qabyaalada iyo isnacaybka allah tabaaraka wa tacaala allah ka saaro allah tabaaraka wa tacaala qaybsanaanta ilaahay sharkeeda allah ka qabto shaydaanka iyo sharkiisa allah ka qabto ilaahay qulubtooda ay jeclaysiiyo amni iyo ammaan allah siiyo diinta allah inoo barakeeyo cilmiga allah inoo barakeeyo quraanka allah inoo barakeeyo dacwada allah inoo barakeeyo علماء يدعاء يتذكر الخير كالله ينوحي بديو إلهي تبارك وتعالى ربكين سنو المساج كنو كل مين جلدي سبردوس الله ينو كل مين إلهي جلد البردوس ينو كل مين عذاب كيسي عردي الله ينوحي بديو كو إلهي رالك النغضة وچيكي صداوة الله ينوحي بديو إلهي كو وچيكي صداوة ما نتقيم الله ينوحي بديو حوض كي نبيك كو كعب الله ينوحي بديو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كو هلا الله ينوحي بديو إلهي تبارك وتعالى خاتمه ونكسر هين وديلو ما نتان إلهي لك كلنا مالبه إنه نجد وخير بدل الله قريب أدون كان في تركيز الله ينجح بديو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أعلم.